السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين سلامي أخيارت الشرابت لو حرب الدولة من هالكان مانت إن كلو ذاقو حير آد مهم أو نرشق قيب كست أو كميد اللو أدي سنكرو حير كان وحال يرادا سديتن لباتن أما سوحال يرادا بريتو برينسيبل بريتو وانين ودشت تليانيغا كون سديد بقول سياشن إليحي أيو حصوص عري حير ليرادو لباتن سديتن ama 80-20 oo micnaheedu ay tahay in hawl maalmeedkeena haddii aan qabanno 20ka ugu muhiimsan aynu helayno natiijo ah 80%. tusaale ahaan ninkan wuxuu leeyahay wuxuu ahaa nin dhaqaaliyahana wuxuu leeyahay hantida caalamka taala 80% hantida caalamka taala 80% waxay gacanta ugu jirtaa 20% dadka dunida ku nool. xeerkan qofkii fahma nolosha waxa loo adeegsan karaa qayb kasta oo kamid ah. tusaale ahaan haddaan u adeegsano oo dhowr tusaale aan ka soo qaadano aan ka bilowno tusaale ahaan wadankanaga dhibaatooyin ayaa ka jira. dhibaatooyinka wadanka ka jira haddii la rabo in la xalliyo in dhammaan dhibaatooyinkaas mid loo xalliyo waxa ka sahlan in la xalliyo kuwa ugu muhiimsan oo ugu daran in la xalliyo. markaas waxaa dhici doonta in kuwa badan ay ku hoos xalismaan. haddii ay ku qorshaysan tahay inaad maanta qabatid 10 shay ama 10 shaqo haddii ay ku qorshaysan maanta inaad qabatid intii aadan ku dhaqaaqin 10kaas shaqo waa ina calaamadaysaa 2 ka mid ah oo haddii aad qabatid aad uga maarmi kartid 8 soo hartay. wuxuu ku leeyahay haddii shirkadaada ama dukaankaaga waxa rabtid dadka ku xiran dhaqaalaha dukaankaaga soo gala 80% wuxuu ka yimaadaa 20% dadka kugu xiran ee clientiga ama maxayada customerska waxa rabtid 20% dadka kugu xiran ayaa waxay sababaan 80% hantida dukaanka soo gasha. haddii aan tusaale kale oo aan fahanka sii siyaadino aan ka soo qaadno qof wax akhrinaya ardayda hadda wax barato oo kale tusaale ahaan qofka hadduu doono buug akhriyo buugga dhan min bilow ilaa dhammaad muhiim ah. haddii laakiin aan ku dabaqno xeerkan oo aan buuggan 20% ka muhiimka ah ka akhrino waxaanu helaynaa faa'iido u dhiganta 80% inaanu naqaano wixii buuggaas ku jira. laakiin haddii aan akhrino guud ahaan buugga oo ku rarafano maanta akhriskiisa ku daalno wax natiijo ah oo aan ka gaarayno male. marka xeerkan wuxuu kuu fududeynayaa in markii aad wax qabsanaysid ama dukaan loohow ama arday ahow ama qof shaqadiisa kala hormarkiisa wata ahow waxa rabtay ahow markaad wax qabsanaysid inaad tiraahdid kee ugu muhiimsan waa maxay shayga koowaad ugu muhiimsan waa maxay shayga labaad ugu muhiimsan inaa hawshaada saas u qabsatid ayuu xeerkan fahansiinaya. soo dhawaada. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.